بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت wanaagsan kusoo dhawaada mar kale waa cashir ka mid ah cashiradeen imtixaanaha ahaa ee course-ka computer introduction waxaan soo gaarnay maxaa la yiraahdaa chapter-kii saddexaad ama cutubkii saddexaad laba chapter oo hore ayaan ka soo hadalnay chapter kood waxa introduction oo course-ka hordhac ku saabsan ayaan kaga soo hadalnay oo maxaa la yiraahdaa asaaska computer-ka waa maxay computer qaybaha computer-ka taariikhda computer-ka qaybaha uu kala baxo faa'iidooyinkiisa waxyaabahaas oo dhan oo asaaska aan kaga soo hadalnay sidoo kale waxaan soo aragnay chapter-kii labaad oo ahaa computer and hardware lana computer-ka maxaan ku raday ahadiya labadaas ayaan u qaybinay computer software iyo computer hardware marka hardware-ka ka soo hadalnay chapter-ka ama cutubkii labaad wuxuu ku saabsanaa qaybaha hardware-ka uu kala baxo iyo maxaa la yiraahdaa sida input devices-ka qalabka computer-ka ay wax laga geliyo qalab computer-ka wax ka soo baxaan kuwa computer wax lagu kaydiyo qalabkaas oo dhan ayaynu maxaan ku raday kaga soo hadalnay chapter-kii labaad chapter-kan waxa weeyaan by the way labada chapter hore waxaan isticmaalanay slide ban isticmaalanay book labadaba wuu lahaa hadda casharada hore waa kuwan soo dhiganay iyaga slide aan soo aragnay marka hore waxaan isticmaali jirnay kan baan isticmaali jirnay pdf-ka ayaan isticmaali jirnay mar dambe adigu insha Allah course-kan ayaan waxaan u bedelay marka waxaan u bedelay okay hada arday WhatsApp igala hadlay waxaan marka maxaan ku raday aan u bedelay marka inaan samayno slide-ka marka insha Allah labadii chapter hore slide-koodii waad hayseen slide-ka yara kooban chapter-adan dambe biinillah waa kaga soo hadli doonaa waa samayn doonaa slide-kooda laakiin bal caawa kan baan sii wadanaa biinillah waana idiin soo diray insha Allah marka galaas ku marka cutubka saddexaad waa computer software waxaan jeclahay ficnaalada inaan weydiiyo laakiin waxaan ficay qof kasta inuu garan leena hore min u soo qeexnay markaan ka hadlaynay hardware-ka computer system-ka oo kale meelo fara badan aynu kaga soo hadalnay waa maxay software computer-kana asaasi by the way waxaan u qaybinaynay labadaas hardware iyo software marka dhammaan barnaamijyada maxaan ku raday computer-ka lagu barto labada unba mid hoos yimaadaan hardware marka wixii qalaba ama maxaan ku raday physically aad taaban karto oo arki karayso laakiin software-ku waa barnaamijyada uu ku shaqeeyo waad arki karaysaa laakiin ma taaban karaysa marka software refers to a group waa group kooxo isku tegay ama set iyo group was commit of instructions waa amro isku tegay lana barnaamijka hadda aan ka hadlaa hadda aan sharaxano pdf-ka waxa weeyaan marka la sameeyay amra la isticmaalo waa codes baa la isticmaalo codes isku tegay ayuu barnaamijku dhan ka sameeyay barnaamijyo isku tegay ayuu marka software-kiina uu ka sameeyay marka waa instructions ama maxaan ku raday set of instructions ama ra isku tegay that enables hardware to function taasoo u suurtagelinaysa hardware-ku marka in uu shaqeeyo oo sidii la rabay basically uu shaqeeyo markaan ka hadlana marka maxaan ku raday software-ka laba qaybood marka hore u qaybsamaa qayb la yiraahdo system software iyo qayb la yiraahdo application software marka insha Allah chapter-kan labadan baan ka hadlanaa karaa wuxuu system software-ka ayaa qaybo u sii qaybsamaya fara badan application software-kana qaybo ayuu u sii qaybsamaya aynu marka bilowno ka ugu horeeyo ah application software marka hore software-ka waxaan u qaybinaynaa labada markaan u qaybino application software marka software that directs the computer to perform a specific task software application-ku software-kan waa software waa nooc ka mid ah maxaan ku raday software-ka kaasoo computer-ka u qabanaya specific task wuxuu u qabanaya specific task okay maxaan ku raday bal metro kale waxa jira mobile-ku kale marka isticmaalayso barnaamijyo fara badan ayaa isticmaalaysaa barnaamijyadaasi mobile-ka markay kuugu jiraan ama computer-ka waxay kuu qabanayaan shaqo khaas ah laakiin haddii laga saaro Windows-kii ama barnaamijkii Android ahaado ama Windows-kaada wuxuu doonaba ahaado mobile ama computer ku doonaba wax saameyn kuma laha tusaale ahaan
WhatsApp baad isticmaalaysaa WhatsApp kani waa barnaamij isla markaana qabanaya shaqo khaas ah okay shaqada khaaska uu qabanaya markaa haddaad ka saarto ka hor computerka wax ma gaarayaan waa maya mobilkaaba ka saarta waa delete garaysaba WhatsAppkii waa maxaan ku raadayay barnaamijyadii kugu jiray oo dhan aad isticmaalayso oo kale hiimogii fiberkii kulli waad ka saartay waxba mobilka gaari maayaan hadday ku jiraan shaqo qabanayaan marka kuwaas waxa la yiraahdaa applications marka waa barnaamijyo khaas ah hadda wuxuu iska noqday af Soomaali iska noqday application iyo app iyo waxa weeyaan appkuna application la soo gaabiyo marka waa barnaamij computer hoos yimaada Windows kuna inta badan ay hoos yimaadaan oo qabanaya shaqo khaas ah waxa jira marka types of application software iyagii ayaa marka sii qaybsamay application software uses the capacity of compute directly for the specific task waxay isticmaalayaan computerka awoodda u leeyahay and maxaan ku rahdaay iyagoo qabanaya marka shaqo khaas ah dadka hadlan I use it to manipulate text qaar waxa loo isticmaalaa text wax laga bedelo qaar sawirada loo isticmaalaa qaar numberka loo isticmaalaa marka text ko kale wuxuu noqonayaa word ko kale noqonaya pdf ko kale noqonaya waxaan notes ko noqonaya graphics waa maxay barnaamijyada sawirada lagu qaado dhan sawirada lagu implement gareeyo ama maxaan ku rahdaay lagu saxo ama wax kaga bedesho sida photoshop oo kale barnaamijyada mobilka waxa jirta malaayiin software aad la soo degayso oo mid aad sawir ku qaadayso mid aad ku saxayso mid aad kale ku bedeliso all this waa graphics numbering waxa kamid ah excel ko kale iyo wixii lamid ah the different types of applications are application software included the following and halka marka waxaan ku arkaynaa waxaan kala saarnay application type bal nooca iyo example tusaalayaal kamid ah waxa kamid ah kuwa la yiraahdo applications ka in isticmaalo kulliyada word processing software waxa kamid ah tusaalahan waa Microsoft Word oo kale Wordpad oo kale Notepad oo kale wax kasto adiga text lagu qorto waxa weeyaan oo textiga lagu format gareeyo dhan waxa la yiraahdaa word processing software kulligood waxa weeyaan waa application waxay kamid yihiin waa applications sidoo kale waxa ku leeyahay database softwares oo loo isticmaalo qaybta programming ka khaasatan database-ka markii xog la kaydinayo Oracle mid leeyahay kamid ah MS Access ka kamid ah way badan yihiin kuwa waxa jira spreadsheet softwares best example waa Microsoft Excel oo kale iyo Apple numbers way badan yihiin waa kuwa kan columns-ka isticmaala ee numberada lagu qorto xisaabaadka calculation ka waxyaabahaas oo dhan iyana waa nooc kamid ah application softwares waxa kamid ah multimedia softwares multimedia waxa la dhahaa shan shay marka isku tagto ayaa waxa la dhahaa multimedia okay ay wada shaqeynayaan waa codka muuqaalka sawirka animationka iyo qoraalka okay shantaas marka isku tagaan ayaa waxa la yiraahdaa marka multimedia marka multimedia marka waa inaga hadda inta badan hadda marka daawanayso TV-ga oo kale animationkii at the same time ba waxa arkaysaa intuba iyagoo shaashada ka dhacaya animationkii iyo codkii sawirkii qoraalkii muuqaalkii kulli hal mar aad arkaysaa iyagoo shaashada ka wada dhacaya oo maxaan kala arkaysaa that's why warbaahinta loo yiraahdo media multimedia weeyaan marka barnaamijyadu way farbadin barnaamijyada codadka loo isticmaalo replay kale media player kale waa multimedia kuwa fiidiyoyada loo isticmaalo waa multimedia kuwa waxyaabahaas oo dhan marka kuwa animation loo isticmaalo and iyana waxa weeyaan waa application multimedia softwares oo dhan waxa la yiraahdaa applications waxa jira kulliyada presentation softwares oo waa kuwa and waxa lagu soo bandhigo PowerPoint-ka kamida and keynotes-ka kamida and focus-ka mid leedahay kamida way badan yihiin waa kuwa slides-ka loo isticmaalo oo lagu soo bandhigo wax kuwa waxa jira enterprise softwares oo iyagu ah kuwa ay shirkadu isticmaalaan customer relationship management system waa barnaamijyadan ay shirkadu isticmaalaan ee xogta shaqaalaha iyo xogta maxaan ku radaa maad shirkadda ka dhacaysa iyo everything lagu sameeyo ama maxaan ku radaa lagu calculate gareeyo sidoo kale waxa jira maxaan ku radaa kulliyada information worker software oo maxaa leedahay ay ka mid yihiin iyo kuwa waxa isticmaala dadka inta badan software-da develop gareeya ama sameeya ayaa isticmaala marka waxa kamid ah bilmeter kale documentation tools resource management way badan yihiin
kuwo software develop gareeya oo designka lagu sameeyo kuwo documentationka lagu sameeyo ama markii wax la qorayo oo kale way firbadi softwares kuwo loo isticmaalo educationka oo Encarta kamida wada aragtay Encarta dictionary Encarta encyclopedia in badan wada aragtaan filaya and kuwa xisaabaadka loo isticmaalo science kuwa loo isticmaalo way badin kuwaasoo dhan ayaa kamida sidoo kale waxa ku leedahay content access softwares oo kuwa loo isticmaalo in lagu galo maxaan ku raday browsers oo kale so access content through the media ama web browser what tusaale kale waa Google Chrome oo kale Firefox oo kale kuwa information ka webs internet ku jira waxa soo dhaw application waxaan macnaha ka hadlanaa noocyada applicationska okay software marka hore laba in u qaybin application software iyo system software ka hadlana iminka waxaan ka hadlanaa waa application software marka application software marka waxyaabaha soo dhan qolka tobnaad application suite ku leeyahay oo application waxa weeyaan waa barnaamijyada sida Microsoft Office oo kale open office oo kale waa barnaamijyada la isku geeyo oo ka kooban barnaamijyo fara badan ka kooban hada Microsoft Office oo kale and ila lix barnaamij la barnaamij ka kooban yahay hal mar marka soo dejiso intaas barnaamij ayaa ku jira ama aad gadato and software kuwa loo isticmaalo engineeringka iyo product development iyo kuwaas waxa weeye anyway all of them waxa weeyaan waa tusaalayaal kamida markaynu ka hadlano basically application markaynu ka hadlano application software marka waxaan jeclahay inaad imika ila fahantay and basically cutubka chapterka saddexaad ayaan bilownay caawo inaad waa maxay horta software iyo sidoo kale inuu laba qaybood u qaybsamo system software iyo application software waxaan jeclahay marka application software inaad ila fahantay iyo qaybihiisa waxaan u gudbay qaybta labaad ee system software ka marka system software and waxa weeyaan waa barnaamijyada isagoo dhisan jid hoos laba qaybood u sii qaybsamaya waa sida Windows oo kale okay Windows 8 Windows 10 Windows 9 whichever marka tusaale marka waxa isbarbar dhigtaa Windows-ka waa ka computer-ka rangareynaya okay waa ka computer-ka maxay rangareynaya oo de computer-ka oo dhanka kala wada waa Windows-ka wax dhici karta qofba inuu hada inta badan waxa loo badan yahay hada 8 iyo 10 baa loo badan yahay walow still dadka qaarna wali ay isticmaalaan ay 7kii isticmaalaan marka ama 7 computer-ka kugu duubnaado ama Windows 10 ha kugu duubnaado waa course insha Allah hada course-kan marka uu dhamaado aynu bilaabi doono weeyaan marka khaasatan Windows 10ka marka maxaan ku raday Windows-kaas marka fiiriso wuxuu noqonayaa marka waa system software weeyaan khaasatan waa operating system maxaa la yiraahdaa maxaan ku raday marka fiiriso Word ko kale ama Excel ko kale barnaamijyadaas aan isticmaalana waxay noqonayaan application software marka these are the programs kuwan waa programno marka barnaamijyo that monitor and control the operation of the computer waa kuwa maamulaya isla markaana xaqiijinaya kaga shaqaysiinaya dhammaan shaqooyinka computerka ayaa waxa la yiraahdaa system software they run the computer system by performing a variety of different fundamental operations shaqooyinka qabtaan waxa kamid ah marka system software ka hadlano shaqooyinka uu qabto waxa kamid ah booting the computer inuu computerka soo kiciyo booting waa soo kicin booting the computer and making sure all the aspects are operational iyo inuu hubiyo dhammaan qaybaha computerku uu maxaa la yiraahdaa ka kooban yahay inay shaqeynayaan booting the computer maxaan uga jeedaa for example computer marka aad u kiciso button-ka ma taabataa marka uu soo kacayo haddii computerka uusan Windows ku jirin operating system ku jirin ama system software waxa weeye ma shaqeynayo hardware kaliya ma qabanayo marka isaga ayaa computer soo kicinaya markuu soo kicinayo oo computer intuu soo kacayna wuxuu hubinayaa in dhammaan computerka qaybihiisa kala gidan ay shaqeynayaan marka qaybaha computerka gidsan oo soo aragno waa input deviceski processorki maxaa la yiraahdaa memory-gi intaas waxa weeye waa kuwa ugu waaweyn ee computerka marka maxaan ku raday uu soo kacayo la hubinayo inay shaqeynayaan performing operations wuxuu sidoo kale sameeyaa shaqooyin sida retrieving marka wax la soo baxayso load marka wax soo furayo executing marka wax la fulinayo storing marka wax la kaydinayo application programs applicationada marka soo furayso marka soo maxaan ku raday la soo baxayso
marka execution ku sameynayso wax fulinayo execution in badan baan soo sharaxnay iyo sidoo kale store marka la kaydinayo shaqooyinkaas oo dhan waxa amarka qabanaya ama amarka diraya waa system software-ka storing and retrieving files inaad file kaydiso isla markaana aad la soo baxdo retrieving waa la soo bixid storing waa kaydin performing a variety of system utility functions iyo sidoo kale utility-ga isaga dib baan ka arki doonaa marka waxa weeyaan waa qaybo ka mid ah shaqooyinka uu qabto system software-ka marka labaan u qaybinaa qayb la yidhaahdo operating system iyo qayb la yidhaahdo system utility aynu ku horeyno ka hore ee ah operating system-ka horta waa maxay operating system marka operating system waa kana ka hadlanay this is a suite or collection of related computer programs that help manage the computer resources waa suite ama collection of related programs waa programyo isla shaqeynayo oo isku tegay that help manage the computer resources computer resources ka oo imaan doona oo just markaan fiiriso haddaad fiiriso computerkaaga control panelka haddaad tagto so control panelka computerka waxa weeyaan windowska waa meesha laga maamulo computerka oo dhan course-ka markaynu dhiganaynana qaybta ugu badan uu ku saabsan yahay hadda qaybta windowska course-ka windowska markaan bilowno and waa halkan buu ku saabsan yahay marka qaybta tan oo kale markaad fiiriso hadda yara waaweynaysa just large icons ka dhig halkan waxaad u jeedo oo dhan waa wada barnaamijyo mid walba shaqo gaar u qabanaya qaybta barnaamijyada qaybta color management qaybta deviceska aaladaha filasha wax all these things qaybta powerka and qaybta hadda mouse-ka qaybta programmingska iyo waxa ku duuban computerka meesha laga maamulo barnaamijyada lagu maxaan ku radaa computerka ku duuban iyo wixii lamida date iyo time-ka all in all deviceska printerska and the keyboard-ki and microphone-ka maxaan ku radaa telephone markaad computerka ku isticmaalayso modems wixii lamida halkan waa languageski waxaasoo wixii codadka la xiriira wixii systemka la xiriira waa barnaamijyadan marka ay isku tagaan ayay waxa barnaamijyadan la isku geeyo way Windows simple macnaha Windows ka computerka ugu jira wuxuu ka kooban yahay barnaamijyadan waa internet marka horena Microsoft markay sameynayso waxa weeye intaas oo boqol oo shaqaale dhici karta inay ka shaqeeyaan ama maxaan ku radaa kumaan kumba so waxa dhici karta systemka application qaybtana qolo soo sameeyso qolo kale ay kan soo sameeyso qolo kale ay kan soo sameeyso hadhow la isku xiro markii la isku xiro then meesha waxa ka soo baxaya systemka dhameystiran ee computerka marka hagay waa meesha leeyahay marka waa collection of related computer program waa program isku tagay that help kaaso ka caawinaya manage the computer resources in ay maaragtay computer ay maamulaan resourceska computer marka waa maxay resource computer hore u soo arag chapter hore ku soo aragnay waxa weeye simply waa hardware marka ka soo hadalnay waa memory-ga iyo CPU-ga input device output device iyo storage oo kuwaas weeye marka mainly RAM-ka iyo CPU-ga and maxaan ku leeyahay computerka marka isticmaalayso computerka duu yidaana computer resource-ka computerka uu isticmaalay waa maxay ko RAM-ka waa isticmaalaya oo the computerka intuu daarayo oo wax kaydinaya number 2 CPU-ga de shaqadana aan sameynay amarada oo dhan CPU-ga fulinaya and maxaan ku raday and input device ko wax output device kana waa adigan de wax ka soo baxaya inuu isticmaalo marka anytime at computer isticmaalayso all these things waxa weeyaan waa kuwa aad u baahan tahay inaad anytime ay ku muuqdaan ama aad isticmaasho well this interface between the computer hardware and application software application programs waa wajiga u dhaxeeya computer hardware-ka iyo applicationska oo say ugu dhaxeeya application-ka word-ka iyo hardware word ba hadda isticmaalaysa ama PDF application ba isticmaalaysa application-kan iyo hardware-ka computerka yaa u dhaxeeya cidda u dhaxaysa isfahansiinaysa waa software-ka mobile-ka tusaale marka isticmaalayso hadda Android u yahay mobile-ka operating system waa Android and Android-ka iyo metro kale application ama hardware-ka oo ah mobile-ka laftigiisa iyo application-ka aad mobile ku isticmaalayso faraq waxa u dhaxeeya waxa weeyaan waa operating system-ka marka
isna balan fiirina dhowr shaqo shaqooyinka suurta aad bay u tira badan yihiin functionska oo qabto operating systemku laakiin bal dhowr shay aynu ka taabano qodobka ugu horreeya waxa weeyaan waxaan idhahnaa process management process maxaan uga jeednaa process waxa weeyaan dhammaan shaqooyinka ka dhaca computerka ayaa waxa la yidhahdaa process okay and the operating system must keep track all processes dhammaan wuxuu samaynayaa shaqooyinka ka dhacaya computerka ayuu qabanayaa it must schedule programs when need monitor them in case of any error tusaale ahaan hordhici marka kasoo hadalna chapter hore in badan waxaan ka hadalnay casharadina dadka dib naga soo biray way duuban yihiin just kaliya inaad casharada adigu daawato qof walba iyo dadaalkiisa almost hadda wuu xirmay beri baa ka dhiman maxaan ku radaa xilligii arday cusub ay kusoo biiri lahay laakiin qofku ifan hadduu hadda dib xitaa hadda nagaga soo biiro dhammaan intaynu soo dhiganay casharada soo dhiganay dhan way duubayaan qofku 2 days uu ku soo dhamayn karaa uu ku daawan karaya waxa weeye hadda way jiraan arday dhawaan inagu soo biiray oo ardayda dhan ka horreeya jira maxaan ku radaa oo runtii dhameeyeba si fiican maaragtay ula qabso marka qofku bay ku xiran tahay inaad daawato casharada aad soo daawato kadibna maaragtay any time aad su'aal qabtana waxa weeye waad soo weydiin karaysaa marka macallimiinta laakiin just even casharka kaliya haddaad daawato you don't need anything else marka waxaan soo sheegnay shaqada markay dhacayso computerka markaad isticmaalayso every single day waxaad samaynaysaa amaraad samaynaysaa amarada aad samaynayso waa maxay amarada samaynayso waxa weeyaan safe waa amar close waa amar open fur waa amar xir waa amar okay demi waa amar daaqad fur waa amar كليكتن أدمانتو التايب وأمر select وأمر delete وأمر وحاسو نوع ولا أمرات كمبيوتر كسماس أمر هذا أسمرك وحلي ذا وشقوينك وأمرات كمبيوتر كودرسو أو كمان يسي بيو يا مرتر كرني مرك شقدا إسكود بيويا شقدا وح كمان يا محي وح كمان يا سي بيو لكن وح معمول يا operating system كا مرك سبو معمول يا وح كسوقات شن أمر باس سمايسي example كان لو جرنا وبحناي دور أمر بعصميسي فر حر كبح delete دور أمر بعصمي دور كأمر كيو بالجلنية حاجة كيو لوجل سي بي كيو لوجلنية رام كانوا كيدنا كدينو كيو بالجلنية لاين بالجلنية مصف بالجلنية لاين كامل كالجلية إن سي بي مر بروح قاعدنا كأوهرية وسمعنا يدب وكيدنا رام كشغال حريك تجلي كيو جالس راح كذا scheduling بعد سمعنا مركا scheduling programs scheduling هو حوي مركا إن وقت لو وقتيه waxa la oranayaa okay processka ugu horeeya shaqada ugu horeeya 3 second bay u baahan tahay macnaha queue-ga 2 second bay ku jiraysaa 3 second waxay ku jiraysaa CPU-ga then waa la kaydinayaa shaqada labaad waxay u baahan tahay 5 second queue-ga 2 second bay ku jiraysaa saas oo kale and CPU-ga 1 second bay ku jiraysaa and then in output-ka loo dirana waxay ku sii jiraysaa 3 second saas oo kale waa la waqtiyeynaya shaqo kasta aad qabanayso amradan aad samaynayso dhan waa laga shaqeynaya queue baa la dhigeenaya kadibna waxa weeye waxa la samaynayaa in scheduling waa waqtiye waa timetable amal oo kale ويان scheduling ما الله سمعنا يعني waayo computerku shaqada uu qabanaya waxa dhici karta hada just weekii 3 course baan galnaa ama 3 class baan galnaa hadana timetable baynu leenahay soo aragteen the computer waxa dhici karta halkii daqiiqo inuu 20 shaqo qabanayo marka timetable buu u baahan yahay shaqo wixii qaab loo kala saxo qaab loo kala horeysiyo qaab loo kaydiyo qaab loo kala habeeyo wuu u baahan yahay marka schedule baa lagu sameeyaa xilliga marka loo baahan yahay sidoo kale schedule kaliya ma monitor them ومونيتور معناها وكنترول نت وتراك لو سميو in case of any error hadii shaqada tani ay wax error ay ku dhacday leena shaqa la rabay in la fuliyo kana error baa dhacay file baa tirxir error baa dhacay wuu xirmi waayay ama fur baa tir ugu basxirayba error baa dhacay error ka marka inta badan waxa xalinaya automatically oo xalinaya waxa weeyaan waa operating system marka muxuu qabanaya waa process management shaqooyinka computer ka dhacaya inuu maamulo sidoo kale resource management inuu maamulo maxay resource management the operating system allocate system resources and allocate waxa jecel allocates iyo deallocates allocate waxa weeyaan hadii xog laga qaado meel oo CPU la geeyo waa allocation allocate weeyaan hadii CPU laga soo qaado meel kale gaadan waa deallocate hadii doonana shaqo laga qaado input device-ka laga qaado keyboard-ka laga qaado oo la geeyo RAM-ka waa allocation hadii RAM-ka laga soo qaado dib looga qaadayna waa deallocation marka maanta dhan computer waxa dhacaya allocation deallocation ma dhacaya
marka system allocate system resources wuxuu samaynayaa shaqooyinkaas uu ogolanaya macnaha geynaya sida CPU oo kale main memory oo kale iyo input devices oo kale sida disk type common printers kama wajaba marka CPU ga maanta dhan shaqooyinka waa la geenaya oo laga soo qaadaya waxa la geenaya memory ga laga sii qaadaya input ka laga soo qaadaya output ka laga soo diraya shaqooyinkaas oo dhan waa resource management inuu maamulo resourceska computerka shaqada waxa qabanaya marka waa operating systemka sidoo kale waxa jira wax la yiraahdo data management waxa weeyaan waa movement of the data okay it's called sidoo kale waxa la yiraahdo input iyo output management. The operating system handles all movement of data between the main component of the computer. tusaale ahaan xog baa ka tegaysa keyboardka amar gelinaysa simple hadda highlighting aan imika sameeyo screenka waa amar ya xagaan ka galiyay key waxaan ka galiyay mouse-ka amar baad ka gelinaysaa mouse-ka waa click oo kale waa xiro oo kale waa save oo kale waa daar oo kale waa delete oo kale waa exit oo kale amarkaad gelinayso keyboardka waxaad ka gelinaysaa maanta oo dhan amarada aad gelinayso keyboardka laga qaadaya amarkii ama xogtii waxa la geenayaa maxay RAM-ka waa laga sii qaadaya xogtii waxay tagaysaa mar waxay tagaysaa CPU-ga waa laga celinaya waxay tagaysaa RAM-ka mar waxay aadaysaa maxaan ku raadayay hard disk-ga mar waxay aadaysaa output devices-ka shaqa maanta oo dhan computerka waxa weeyaan wuxuu leeyahay hadda motherboard-ka aan ka soo hadlaynay waxa la yiraahdo buses waxa la address bus iyo data bus iyo maxaan ku raadayay control bus iyo marka control buska waa layman kamida computerka dhexdiisa waxa mara wixii control wixii maxaan ku raadayay maamulka iyo maxaan ku raadayay address-ka kale wixii address markii la raadinayo CPU-ga markii la raadinayo memory-ga la aadayo laga soo qaaday xog laga soo qaaday wixii address-ka ama xog markii la raadinayo address-keeda markii la raadinayo ama ciwaankeeda markii la raadinayo kale ayaa la isticmaalaya database-ka wixii data xogba maanta oo dhan soconaysa computerka isdhaafaysa xogta isdhaafaysa computerka qulqulaysa gudihiisa waxa la yiraahdaa data management marka xogtaas marka waxa maamula ama sameeya waxa weeyaan waa data waxa weeyaan waa basically waa operating system ka marka and anytime an input and output data occurs markasto ay dhacdo in xog la geliyo ama xog la soo saaro data management routine of operating system controls the transfer operating system OS operating system operating system marka wuxuu maamulayaa oo kala shaandhaynaya transferka xogtan kala soconaysa oo computerka gudihiisa u kala goojinaysa for example anytime a number input devices try to send the data to the computer markasta oo number ama inputska qayb kamid ah ay doonayaan inay xog u diraan computerka its operating system waa shaqada operating systemka to manage all of these IO processes IO waxay taagantay input output markasto macnaha keyboardka aad xog ka dirayso ama mouse-ka aad xog ka dirayso ama ka dirayso waa shaqada marka operating systemka to manage all these input and output process shaqooyinkan oo dhan inuu qabto because input and output process is very slow of process spooling prevents the data from being stored in the main storage. The pooling reports first written saved to disk before being printed. The device or tape acts as a buffer between the main storage. Halka waxaa jirta input deviceska way ka speedkoodu wuu ka yaryahay marka loo eego processka shaqadu processku qabanayo CPU ku qabanayo dib CPU waxa dhici karta CPU waa very fast aad buu xawaaris u dheeriyaa kadibna wuxuu sameynayaa amarka marka aad ka dirto keyboardka ama any adiga input device ka dirto xogta waxa lagu sii kaydinaya meel leedahay buffer area marka waa meel keyboardka xogta marka macnaha xogta just marka amarka dirto automatically CPU-ga aad meeyso buffer area meel leedahay lagu sii kaydinaya kadibna CPU-ga ayaa ka soo doonanaya oo halka marka CPU wuxuu sameeyaa checking buu sameeyaa anytime wuxuu fiirinayaa in ay amaro u yaalaan ama wax la process gareeyo ay yaalaan xagee yaalaan wax la process gareeyo inay yaalaan input deviceska ama input iyo output deviceska marka shaqada isagoo qabanaya anytime hadana wuu check gareynaya markuu arko diyaar aduu shaqadii keyboardka amarka gelisay amarkii bufferka la dhigaya waxay sugaysaa marka keyboardka inuu CPU u yimaado saacada computerka uu qaato
kadibna uu shaqadii u process gareeyo marka isagu marka obviously spoolikaas marka and wuu samaynayaa inuu ku soo laabto liana isagu ka speed badan yahay marka loo eego and input iyo output deviceska sidoo kale monitoring system activities inuu maaragtay uu maxaan ku raadaya la socdo waxa dhacaya systemka ka dhacaya sida performance-ga shaqooyin and sida uu u shaqeynayo iyo sidoo kale security-ga sidoo kale waxyaabaha uu qabto operating system shaqada uu qabto waxa ka mid ah error correction inuu saxo oo in badan baa computer-ka waxaad arkaysaa khalad baa dhacaya khaladkii automatically isagaa saxaya instead aad adigu saxi lahayd in badan baad computer-ka markaad click siinayso maanta oo dhan khaladaad iyo error baad samaynaysaa gelaysaa laakiin computer-ka awood wuxuu leeyahay errorkaas inuu markaa itself uu markaa uu maxalliyada u saxo halka waxaa ka bilaabmaya just qaybaha tables of operating system markaan ka hadlanay ayaa la sii qaybinaya waxaan jeclahay uu yara dheer yahay inaan isaga ka dhigo insha Allah galaaska dambe biinila xogaa PDF oo kale uu yara dheer yahay that's why aan hadda chapterada hore aanu isticmaalanay slideska oo soo yara koobnay insha Allah laakiin dib malaha casharada qudhooda way duwan yihiin website-ka ku jiraan idin kuma adkaanaya ma filaya biinila waxaan jeclahay waa la fahmay wixii su'aal qaba you can ask intaana idin xaadirin fadlan ha ka bixinina سبحانك اللهم وبحمدك اوكي waxaan jeclahay wax su'aal inaysan jirin insha Allah waa inoo iyo casharkayga qofka qoraal soo diray نستغفرك ونتوب إليك هيا ما سنتي جزاكم الله خير